الحمد لله. waxaan u maleynayaa fadhigii hore aan kaga soo jawaabnay su'aasha mid lamid ah haweentu haddii aynan maxram haysanin xilligii xajka sideeda kalena ay u awoodo hadday dumar aamina heli karto way raaci kartaa dumarka jamaacada ee aaminka ah waa niswatu thiqaat la yiraahdo ayaa galaya booskii maxramku iyada xifdinteeda iyo ilaalinteedu ahaa marka iyagu dad kooxo thiqaad oo wanaagsan yihiinna ilaalinta way isugu filaanayaan dariiqo hadduu aamin yahay qadiyadaas cumuumaadka axaadiidta ee maxram la-aan ma bixi kartaa suwarka iyo masaa'ilka laga khasisayo laga saarayay ka mid tahay cinda kathiiri min alfuqahaai oo fuqahadeena shaaficiyadu ka mid yihiin haddii la isweydiiyo maxaa asal iyo daliil u ah waxaa asal iyo daliil ah ijmaaca saxaabada ijmaacooda baa daliil iyo asal u ah ijmaaca saxaabada waxaa soo saaray asalkiisa imaamu albukhaari fii saxiixi kitaab alxaj baab wuxuu sameynaya baabu xaji nisaa wuxuu ku soo gurinayaa qisada cumar radi allahu canhu wa ardaah iyo ummahaat lmuminiin iyo xaasaskii nabigeenu ka tegay sala allahu alayh alih wasalam cumar sanadkii ugu dambeysay khilaafadiisa inay xajiyaan buu u ogolaaday cabdiraxmaan ibni cawf iyo cuhmaan ibni cafaan ayuu socodkay socdeen midna horay ka dhigay midna gadaal ka dhigay meesha ay degaanna labada dhinac ka degayay ummahaatulmuminiinka qaarkood baan meesha dadka xajinaya maxram ugu jirin sida safiya binti xuyaya ee kuwa lamidka ah cumar sanadkaa waa xajiyeen waxaa la socda ee hor iyo gadaal ka joogana waa cuhmaan ibni cafaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf saxaabadii joogtay walaa ummahaatulmuminiinkii cid inkirtay oo diiday ma jirin xilligii cuhmaanna saasay ku xajin jireen iyadana cidi hadal kama dhihin masaladaasi haddaba waa masaa'il ijmaac la dhihi kara wey culimmada qaarkoodna ay ku tilmaameen ijmaac culimmadu isku raaceen inuu yahay hal masalaan rabaa haddaba inaan baraarujiyo oo talabada fiqiga iyo talabada usuululfiqiga cilmiga ah inaan masaladaa ku baraarujiyaan rabaa masaladan haddii la yidhahda saxaabadii qaar baa sameeyey qaarna way ka aamuseen waa nooca ijmaaca sukuutiga la yidhaahdo ijmaaca sukuutiga khilaaf baa ku jira intaas waa inta cumuumka iyo si guud ahaan talabatulcilmigu ay yaqaanaan wey laakiin haa hunaa mas'alatun oo ah masaa'ilka khilaafka aan ka mid ahayn suwarka iyo masaa'ilka ijmaaca sukuutiga ah hadday dhacdadu dhacdo caam ah tahay soona noqnoqoto tikraarka waxay yidhahdaan soo laalaabato wax inkirana aan jirin ijmaaca suuradaas waa xuja itifaaqan laa ikhtilaafan khilaaf kama jira xujiyadeeda sidaa darteed xujadeeda ijmaaca sukuutiga khilaafka ka jira suuradaas ka mid maaha mas'aladana suuradaasay ka mid tahay intaasoo sanay soo noqnoqotay khilaafadii cumar sanadkii u dambeeyey intii cuhmaan joogay walaa munkira wax inkirayana ma jiro sidaa darteed ijmaacuna cumuumka nusuusta waxyaabaha lagu khasisuu ka mid yahay welihadaa masaladaasi qadiyadaasaa khasisayso niswa hiqaat iyo jamaaca hiqaat hadday la socoto maxram laan way xajihi kartaa calaa asaxi alqowleyni